بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta maalin gaar ah waaye, maalintii siyaasadda iyo arrimaha kale laga hadlayay maahan, maalintii xuskii asaasidii geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, dhammaan sarreeyayaasha saraakiisha saraakiil xigeenka, alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda dhammaan waxaan leeyahay hambalyo. waxaan idin rajaynayaa guul iyo sharaf sida aad ugu leedihiin ummadda Soomaaliyeed. insha allahu mid waarta ayay noqon doontaa sharaftaas. sida taliyahu halkan ka sheegay, inkastoo dalkeena iyo dowladeenuba ay duruufo adag isaga sugan yihiin, muddo dheerna kusoo sugnaayeen, haddana taasi naga reebi mayso in aan geesiyaasheenna waxa ay mudan yihiin haddii aanan u awoodin materiali ahaan maadiyan, haddii aanan u awoodin inaan magaca iyo qalbiga iyo xiska intaba aan ku hayno. marka ciidanka qalabka sida guud ahaan, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, taariikhda ummaddan waxa ay ku leeyihiin magac weyn oo micno leh. dadka inta wax magaratada ah waxa aanay kala saari karin haybadda iyo waxqabadka iyo nafhurnimada ciidanka, iyo kumanaanka kun ee ciidankan uu ka koobo shakhsiyaad yaryar ee laga yaabo xagga iyo xagga maalmo inay khaladaad ka sameeyeen, khaladaad siyaasadeed, khaladaad ciidan, khaladaad maamul, waxay doontaa ha ahaato, laakiin meelkay ka yihiin nisbada ciidanka dadka khaladka ka gala ciidan oo la daba taagan yahay, lasoo qabto, ciidanku maxkamaday leeyihiin, maxkamadooda la geeyo, xabsi loo diro, saas loo daba taagan yahay markii ay khaladaadkaa yaryarkaa ay dhacaan. maanta aan joogno maxkamadda ciidamada qalabka sidaa meel kastay taagan tahay ayadoo ilaalinayso khaladaadkaa yaryarkaa ee magaxxumada u keeni kara ciidanka. marka waxaan leenahay ciidanka xoogga dalka guud ahaan ciidanka qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee aan maanta u taaganahay 66 guuradii aasaaskiisa, waa ka weyn yihiin, waa ka mug weyn yihiin, waa ka haybad iyo sharaf badan yihiin in loo micneeyo qaladaad yaryar oo fafkaran. qodobka kale, ciidankeenu waa ka micno weyn yahay, waana ka magac weyn yahay. shakhsiyaadka dalka inuu hor u kaco aanan rabin, eedeynta iyo cambaaraynta iyo magacxumada ay la daba taagan yihiin. dalku ciidan uu ka dhismaa, amnigiisu asaa mas-uuliyaddeeda iskale, calanka asaa mas-uulka ah, madaxda dalka iyo ammaankooda asaa mas-uulka ah. dalku mar kasta uu khatar galo, in ay nooc kasta khatartaasi ay tahay inay usoo istaagaan, hadday tahay fatahaado, hadday tahay duufaan, hadday tahay cudurro dhaca, hadday tahay inay usoo istaagaan oo ay ummadda badbaadiyaan ayaa yahay waajibaadkooda, waana soo gutay aad iyo aad. marka la rabo horumar gaar ah oo degdeg ah meelo ka mid ah dowladnimada ama dalka in laga sameeyo, kuwa u taagan waa iyaga. xoogooda, ciidankooda, gaadiidkooda, qalabkooda, kuwa la taagan maalin aanay dagaal jirin ee la badbaadinaya dadka si kale oo aan xabad ahayn lagu badbaadinayo, kuwa u taagan waa iyaga. youtube-ka iyo internetka weli laga helayaa abaartii daba dheer ee 1974 iyo doorkii ay ku lahaayeen ciidamada qalabka sida. boqolaal gaari oo isdaba taagan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay, oo sida reero Soomaaliyeed oo dhibaato abaartu ay gaarsiisay, iyo xoolahoodii wixii yaraayo usoo haray, xataa baabuurta usoo saaray oo dayaaradaha usoo saaray oo ka soo qaaday meeshii ku dhibaatoodana meel kala geey ayagay ahaayeen. sidoo kale xilligaas 70-meeyadii horaanteedii markii dalku daacuunka u ka dhacay ee dalkoo dhan uu ku baahay,
meel walba dadku ay muxuu ahay tarab dhimanayeen kuwii kala xiray dalka gaadiidka joojiyey dadka u gurmaday daawada iyo tallaalka meel walba la taagnaa dadka qofkaan tallaalnayn inuu dhaqdhaqaaqa ka ilaalinayay ayagay ahayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliya marka niman qoryo wato oo wax dila ma aha cadow iyo midku doon baade naf dila ma waa naf badbaadiyayaal taariikhduna ay suntan tahay muuqatana oo la arki karo badbaadada ay soo sameeyeen maanta meeshii taagan dowladnimada dalka markii la badbaadiyo waxaa la badbaadiyay 20 milyan oo Soomaali ah ayaa naftooda amnigooda sharaftooda haybadooda la badbaadiyay intaasoo dhan wax isku qaban kara ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka jira sidaas daraadeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed duruufo adag uu soo maray waqti uu burburay oo uu kala tagay oo maxaan ku raadayay siyaasaddu ay qarribtay ayagu ma qarribin mana qarribneen siyaasaddu ay qarribtay ayaa jiray go'aano siyaasadeed oo khaldan inta la qaatay ciidanku uu ku baaba'ay ayaa jiray waqti dambe oo muddo ka soo wareegtay ayaa dib u soo kabasho iyo inay soo curtaaday bilaabay maalinaan meeshaan la deganay oo dad barakacyaal ay deganaayeen maalinaan quruxdaan iyo maxaan ku raadaan wanaaggan hadda ka muuqdo aanay lahayn maanta meel astaan ah oo lagu faano waayo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sida uu yaalo inteynii joogtay unbaa muxuu ahaa xusi karta garanan karta nimanka taliyayaasha ah ee hadda halkan labadii sarreeye halkan soo istaagay ay ka mid ahaayeen iyo kuwii kale faraha badnaayo ay ka horreeyay iyo kuwii ka dambeeyaba hawshaasi qor isu dhiibay ahayd taliyu usoo dhiibay wasiir gaashaandhigba wasiir gaashaandhigu usoo dhiibay dabcan madaxweyne usoo dhiibay maanta meeshaan soo gaartay dowladnimadu waa sidaas waa qor isu dhiib waa hor u wadid waa daba socod laakiin nin walba madaxa dii ciidanka taliyaha yimaada uu yiraahdo wixii hore waxba kama jiraan ana hadda wax sameeyay oo wasiirka yimaada uu yiraahdo ma jirto inta hadii loo jeedo ma inta loo jeesto oo madaxweynuhu yimaada uu yiraahdo warci askartaani waaba khatar waayo inqilaab ay sameey karaan birri hadii rabay waaba muxuu ahaa waxayna yiraahdo meesha maanta aan joogno ee quruxda badan maanan soo istaagin laakiin hawl isu soo daba socotay oo qofba qofka ka dambeeyay oo si qurxinayay ayay ahayd dalkeenu waa dal dimuqraadi ah dal qof inta yimaado oo xafiiskiisa abadiye iska joogaya maaha waa dal isbedbedelayo madaxdu isbedesho xeerarka iyo qawaaniinta xataa isbedelaan oo mar walba la sii horumariyo maxaa ka dhiman waayaha ma la jaan qaadi karaa maxaa cusub saakay waxaan soo marnay taliska taakulaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo dhismayaal cusub iyo agab cusub iyo muxuu ahay ay ku soo zaa'iday muxuu ahay aan usoo xarig shahay yani laababdan oo meelaha oo digital systemka ciidanka ka shaqeeya ayaa qayb ka mid ah yaa jooga hogaanka siyaasiyiinta waxaa hoos jooga qayb dhan oo digitalka systemka ciidanka iyo digitalizationkiisa maaha communicationka keliya laakiin wax walba in la digital la geliya ka shaqeysa maalinna waxaan soo marnay ciidanka xusuus qorka ninka taliyaha ee joogo inta ku wato ay ku qoran yihiin wixiisoo dhanba maalinba meelaan soo joognay nimankii xusuus qorka maalintay wateen ciidanka dhex taagnayna sharaf iyo ammaan iyo karaamay leeyihiin ciidankan wax looma haayo mana dhamma wuxuu u baahnaa ina ma haysto ciidanna ma noqon karo maalintaas hadday dhihi lahaayeen maanaan soo gaarnay maanta meesha aan joogo waxaan u soo gaarnay meeshaas laga soo bilaabo iyo intii ka dambeysay ee qor isu dhiibka ay ahayd ee meeshaan lagu soo gaaray dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego dal dowladi ma jiri karto ciidan la'aan dowladi dimuqraadi ma noqon karto ciidan la'aan dowladi horumar iyo investment iyo dhismo ma heli karto ciidan la'aan mid kasta oo waxaas wanaagga ah oo dowladnimada horumarka maslaxadda ummadda nin kasta oo caqabad yar u dhigayahay waa cadow
cadowgana in layska qabto u baahan yahay cidda u carbisan oo u qaabaysan oo u qalabaysan waa guud ahaan ciidanka qalabka sida gaar ahaanna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed weliba markii wax weyn oo culays badan oo booliiska iyo waxa iyo ka tanbata markay yimaadaan nimanka aad waa ayaga cadowga dibadda ayay u dhisan yihiin inay difaacaan laakiin cadow waa cadow kii ku dilaya waa cadow kii horumarka ku diidaya waa cadow kii ku cabsi gelinaya maanta magaalada Muqdisho alxamdulillah ilaahay yaa mahaddeeda iskale guud ahaan ciidanka amniga ciidanka qalabka sida oo dhan yaa iskale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka booliiska Soomaaliyeed ciidanka nabadgelyada dhammaan ciidanka asluub dhammaan waa la isugu tagay amniga caasimadda in la sugo waa laga wada shaqeeyay quruxda markii la wada shaqeeyo quruxda ka dhalata waa maasantiin dhammaan marka la wada shaqeeyo ciidamadu isu wada tagaan oo hal xarun oo howlgalka laga hogaamiyo amniga ay samaystaan oo ay xoogaga isu geeyaan oo fikirka iyo talada isu geeyaan oo ay qalabka wixii qalab ay haystaan isu geystaan quruxda maanta magaalada Muqdisho ka jirta ayaa ka dhalanaysa quruxda maanta magaalada Muqdisho ka jirta ayaa ka dhalanaysa waxaan leenahay marka dadka Soomaaliyeed ha garab istaagaano guud ahaan ciidanka qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta aan munaasabadoodii aan joogno meel walba cadowga dibadda maanta niman khawaarij la yiraahdo oo la yaqaano mabaadi'da ay ku salaysan yihiin oo Soomaali ah badankood oo la qalloociyay Soomaaliya ha qalloociso ama ajnabi ha qalloociyay oo noo soo dhaxmaro cadowga ajnabiga ah ee aan toos noo soo weerari karin xataa ayagu uu noo soo dhaxmaro oo kan maxaan ku yiraahdaa in dowladda la xagal daaciya rabaa uu soo dhaxmaro kan dhaqaalaha in dadka Soomaaliya lagala diro uu soo dhaxmaro kalsoonida dadka inay lunto oo qofka Soomaaliga isku kalsoonaa waayo oo hadduu gurigiis joogana cabsado hadduu wadada marayana uu cabsado haddii sii socdana uu cabsado hadduu soo socdana uu cabsado kuwa sababaya waa cadow aad iyo aad u xun waa aad iyo aad u xun waa kuwa u hortaagan ee ku dhintay ee tira aan yarayn weliba muxuu ahay ay ka shahiiday waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa kuwa aan maanta soo dhagax dhignay shuhadadaas ilmahoodii agoonta ahaa sidii loo xanaanay lahaa waa kuwa dowladdu maanta ay u dejisay qawaaniin iyo xeerar u samaysay ee kuwa naafada ku noqday halganka noocaas ahay xuquuq inay helaan iyo nolol fiican inay ku noolaadaan dowladdu shul ma aha xasan sheekh jecelo maanta muxuu garab istaagay ama taliyaha maanta yaa jecelo garab istaagaya ma aha qawaaniin dalku uu leeyahay in loo dejiyo oo waajib uga dhigaysaa qof kasta oo talada yimaado ama taliskan ha yimaado ama wasaaradda gaashaandhigga ha yimaado ama dalka ha yimaado madaxweynaha jamhuuriyadda ha noqdo waajib ka dhigaayo in agoonta ciidamada la garab istaago waajib ka dhigaayo dadka dalka u naafoobay ee jirkooda xubno kamida u waayay in si buuxda loo garab istaagay inta ay nool yihiin hadba intii dowladdu awoodooda ay la eg tahay shalay lama soo hadal qaadaynin lama necbayn awooddeena inta la ekeed ma lahayn awood aan ku soo xasuusanna maan leeyahay maanta xogaa awooddoodii kor u soo kacday waa soo xasuusanay waxaan leenahay ma ka gaarnaa dhammaantood maan ka gaarnaa intii aan ka gaarna maan yaa dhaqaaji karnaa waxaadan wada qaba karin lagama wada tagaa la dhaha
haddaanan aqoonta xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhan iyo dadka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalada iyo difaaca dalka ku naafo oo dhan haddaanan waxay mudnaayeen aanan wada geli karin intii aan ka gaarno sanadkan haddaan 100 ka gaarno sanadka dambe 100 kale ku darno sanadka ka dambeeya 1,000 ku darno kan ku sii xiga aan wada dhammaystirno waa wax weyn wax kasta bilaabay leeyahay wax kasta oo bilowda oo urtan waa koraan sunnada nolosha adduunyada ka mid tahay marka waa urinay maanta in loo istaago aqoontii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadkii u naafoobay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee muxuu ahaa u naafoobay dalka difaaciisa ma aha kuwa kale ee booliis leh maxaan ku nabad sugid leh asluub leh in la iloobayo maya maalintoodii iyo meeshooda iyo maqaamkooda ayay aqoonta booliiska Soomaaliyeed waa leedahay kuwa nabad sugidda way yeelan doonaan dhammaan muxuu ahaay waa loo yahay qof kasta oo dalkan difaacay sharaf iyo karaamo inuu ka helaan rabnaa asagu haddii ay tiisi timaadana ilmihiisu ay ka helaan oo ay ka tilmaanaadaan ilmaha kale haddii aan la yidhaah waa ka shaqeynayna taas waxaa soo haray sidaad ogtihiin mucaawanooyin badanaa dalalka sideenoo kale iyo guud ahaan dalalka Afrika mucaawanooyin badanaa la siiyaa caalamka u siiya si gaargaar ah oo bilateral laba dowladoodna waa loo siiyaa hay-ada caalamiana waa siiya hay-adaha caalamiga kow inta badan military ma kaalmeeyaan sidooda wadamo gaar ahoo maxaan ku rahdaa dee labada dowladood ay isla fahmeen oo ayaa kaalmeeya wadamadaas gaarka ah ee na kaalmeeyo halkaana wasiirku uu ka sheegay waa u mahad celinaynaa waa xuseynaa taariikhda xoreynta iyo taariikhda dowlad dhisidda dalka ayay ku astaysan yihiin ay ka mid yihiin ma aha inay qalab iyo diyaarado iyo taangiyo iyo baabayaal bas inayna siiyaan ma aha dadkoodaa qaarkood ku dhintay halkan dadkooda ayaa qaarkood ku dhintay halkan ayaga oo maslaxad kale halkan u joogina Soomaaliya inay saacidaan u jooga qof kasta waa ka qiimo badan yahay ninka ajnabiga ah ee Soomaaliga aan ahayn ee dalkiisa inta ka soo tagay yimida halkan ee dhiigiisu bixi si gaar ah arrintaas nafurnimada waxaan runtii ugu ammaanayaa uguna mahad celinayaa ciidamada African Unionka ka socda ee Soomaaliya joogay magacyada kala duwan soo lahay muddooyin kala duwanay ee hadda maray meelay ka soo bilaabeen meelay nala joogaan tiradooda waa soo yaraatay laakiin weli waa na garab taagay waa loo joogaa waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahad celiyo dowladaha sida gaarka oo bilateralka Soomaaliya u garab istaaga haddaatay wasiirku halkan ka dhawaajiyey waa u sheegay qaarkood Maraykanka Turkida guud ahaan EU-da wadamada gaargaarka ah Uganda ayaan si gaar inaan u xuso rabaa Uganda waxay ka mid tahay ciidamada African Unionka ee halkan jooga waxayna ka mid tahay wadamada ciidamo inta noo soo dira gaar ah oo African Union aanu qarashkooda bixinayn ee dowladda Uganda oo Afrika ku taalo walaal oo Afrikaan iyagu ay qarashkooda bixinayaan dowladda ay bixinayso ee nala jooga dalkan ciidankeena ka garab dagaalamaya ee la socdo qalab aad qaali u ah oo meeshaan ku gubtay oo cid u magdhawaysa aan jirin Uganda waxaa sidoo kale ciidamo aan mishinka Africa Union ka tirsanayn ay nooga yimaadeen ay nala joogaan waddanka dariska ah Ethiopia kama tirsana Africa Union waa ka tirsan yihiin mishinka ciidan ay u jooga laakiin ciidan aan ka tirsanayn oo dheeraadi ana waa jooga dhulkii ciidanka Africa Union ka tirsan oo dabooli lahaa dhul ka badan ay naga dabooleen oo ay ciidan gaar u keeneen waa u mahad celinaynaa ayagan sidoo kale wadamada gaargaarka ah ee loo waxeeyey waa u mahad celinaynaa guud ahaan maalin walba maalinta ka dambaysa laakiin ciidamadeena way soo kobcayaan waxay la wareegayaan mas-uuliyadda meel ka mid a meelihii maalinaan soo marnay madaxda dalka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka dhammaan ay ciidankaas ajnabiga oo walaalaha ay ilaaliyaan daba socdaan la joogaan xafiiskooda ay hor taagan yihiin meel walba ay joogaan meelaan soo gaarnay mar hore
aan u mahad celino dhan waa mahadsantihiin intaa waa ku filannahay waa is ilaali karnaa madaxdeena waa ilaasho karnaa waa mahadsantihiin aan dhahno oo aan muxuu ahay ay naga baxaan sababtii inta dhimana midba meelo badan FOPs waxaa loo yaqaano xarumaha indhaha horaa oo meelo badan oo dalka ku yaalo ilaa dhowr iyo 20 meelood ah oo ay noo hayeen ayaga ayaan dib u wala wareegnay oo maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu joogaa oo waxbana aanay ka halaabin dibna aan muxuu ahay shabaab una qabsanin una soo haweysan inta dhimana maran dheer ilaahay idinki sidaasaan ula wareegi doonaa ayagana waa u mahad celi doonaa diyaariyada sidaas ayaa ciidankeena tabartiisu ay marba marka kale u soo koraysaa guud ahaan mahad celintaas ayaan u mahayaa dowladiina garab istaagay oo dhan si gaara waxaan rabaa inaan mahad dheeriya ugu daro dalka Turkiga oo aad arkayseen doorka uu amnigeena iyo nabadeena iyo ciidan iskeena u ka qaatay si gaara ayaan ugu mahad celinayaa ayada oo guud ahaan dadkii la sheegay oo dhan iyo dowladihii aan sheegnay oo dhan ay mahadsan yihiin walaalahaas dheeri kaalmo dheeri ah oo zaid ah ayayna siiyeen oo meelo badan oo kale oo ka codsanay aan ka heli weyn marka waa u mahad celinaynaa aad iyo aad walaalaha kalena inay kaalmadooda dalka ay kordhiyaan aan rajeynayna muddada kooban ee aan ka baxayno xilliga kala guurka adyaamiya laakiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed u sheego maanta waxaan joognaa meel ciidankeenu ayaguna ay kalsooni isu qabaan annaga madaxdaana aan kalsooni ku qabno oo aan waajibaad siino keligood inay meel aadaan shaqo qabtaan cadow meel lagu soo sheegay cawo madow inay inta dheelmadaan ay aadaan oo ay soo burburiyaan oo ay yeeleen inta dhimana muddo kooban waa rajaynaynaa oo dhow inay dhamaystiraan mar kale sidaas daraaddeed ciidankeenu dhismihiisa iyo tababaradiisa meel soo maray maalinaan soo marnay askari xoogga dalka oo gudaha lagu tababaray aanu jirin dablaha dibadda loogu qaado 9 casho tababara ama 45 casho tababara dibadda loogu soo siiyo maanta horta waxaan iska reebnay in askari dibadda loogu qaado oo dibadda lagu soo tababaro ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dalka gudihiisa lagu tababara 45 cisho iyo 9 cishana lama tababare 6 bilooda la tababaraa ugu yaraan markay ugu yartahay 6 bilood iyo ka bacdi wixii takhasus oo tababaro gaar uu galay ayaa wadadii caadiga ahayd ee markii hore aan ka soo habawnay ayaan dib ugu noqonaynaa tartiib saraakiil waa dirsanaa weli waa nala soo tababaraa laakiin mar dhow jaamacaddii difaaca Defense University halkaan aan ka furaynaa saraakiisha ugu waaweyn ee istiraatiijiyada difaaca iyo lagu bartar aan ka sameeyay akademiyaashiina waa bilownay dufcadii ugu horeeyay oo saraakiisha yar xidiglayaal ay ka soo baxeen dalka gudihiisa ku yaala EUTM nimanka la yiraahdo ee European-iska ee halkaan noogu bilaabay course-ka saraakiisha inay noo tababaraan waa maadsan yihiin mar dhowna muxuu ahay waa lagu soo wareejinayaan saraakiisheena hoose halkaan aan ku tababari doonaa ciidanka marka qalabna dhinaca waxaad ka aragteen sambal amaanta waad aragteen tababaradooda iyo soo kabashadooda meesha soo maraya tababarka ciidanka talis gaar ah laga dhigay yani dawladda Soomaaliya fikir kasta oo jira oo wax ku soo kordhinaya dhismaha ciidamada saaxiib ajnabi ah oo noo keeno ama annagu dhexdeena intaan iskala doon aan isla garan waa ku dhaqaaqnaa maalinta dambe inuu dhaqan galo in badan oo kamidana waa noo dhaqan galay waxaan leeyahay mar kale guud ahaan ciidanka qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hambalyo sanad guurada 6aad waxaan leeyahay waajibaadkiina iyo hawshiina way caddahay qalab wixii dawladda Soomaaliya idin heli kartay waa hesheen waad haysataan waxa dhimanna waa lagu maqan yahay waa la daba joogaa xuquuq iyo nolol fiican
wixii dowladda Soomaaliya ay idin heli kartay way idin heshay waxa dhimanay la tawsan yahayna way soo socdaan waa loo maqan yahay haddii aan yiraahdo mar kale hambalyo aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.